بسم الله الصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan ka hadlayaa aragtida caanaha. Adigoo caano cabay, iyadoo caano ka daatay, caano macaan, caano qaraar, caano midabkooda bedelan, waxyaabahaasoo dhan ee caano lagu siinayo micnooyin aad u badan ay leeyihiin. Waxaan u maleynayaa riyada caanaha sidoodaba hal muuqaal inaan lagu soo koobi kareynin. waayo micnaheeda way badan yihiin. Mufasiriintana mararka qaar waxay meelo qaar si kala duwan ayay uga hadlaan. Marka si aan isku soo aruuriyay mufasiriin badan ra'yigooda ee ka qabaan caanaha. Insha Allah waxaan rajaynayaa inta awoodeeda ah inaan ku soo koobo muuqaalkan. Aan ku horeeyo gabadha la qabo. Hadday ku riyooto caano, iyadana tahay awlaad raadis, waxay tilmaamaysaa uur. Hadday faqri jirana arsaaqad. Sidoo kale gabadha la qabo hadday ku riyooto iyadoo caano cabayso, waxay tilmaamaysaa dadka ka agdhow inay jecel yihiin. Waxay kaloo tilmaamaysaa inuu Rabbi xaggiisa ay ka dhowrsan tahay, ka ilaashan tahay. Gabadha weli guursanin, aragtida caano waxay tilmaamaysaa bishaarooyin farxad leh. Sidoo kale waxay tilmaamaysaa waqtiyo aad u farxad badan, kheyr badan, barakooyin badan wadada ugu soo jiraan oo weliba soo dhow. Sidoo kale caanaha gabadha la guursanin waxay u tilmaamaysaa tahaaradeeda, aadaabteeda, sharafteeda, dhowrsanaanteeda, iyo weliba waxay tilmaamaysaa qalbi nadiifsan. Hadday ku riyooto gabadha la guursanin iyadoo caano cabayso, taa waxay tilmaamaysaa inay calaaqa cusub, qof jacayl iyo waxyaabahaas oo kale soo bandhigan doono. Insha Allah kheyr. Gabadha la qabo aan u soo noqdo. Gabadha la qabo hadday ku riyooto iyadoo cabaysa caano kulul, taa waxay tilmaamaysaa dunuub iyo qalada inay ka toobad keeni doonto, mise ay hagaajin doonto. Qaladaad hadday jiraan way hagaajin doontaa, hadday dunuub jiraan waa toobad. Daadashada caanaha gabadha la qabo uma wanaagsano. Guud ahaanba daadashada caanaha riya haddaad ku aragtid ma fiicno. Laakiin insha Allah markaa riyadaas oo kale aragtid waxaad samayn kartaa ducooyin, istighfaar iyo cibaadooyin. Mise isla xaaladda riyada aragtaad leedahay Rabbi riyadaas sharteedan kaa magan gala. Qofka hadduu ku riyoodo asigoo neef lisaayo, ka soo qaad neef geelaad lisaysaa. Caanihiina waxaa ku jira sun, way sumaysan yihiin. taa waxay tilmaamaysaa xoolo xaaraan. Riyadaa rag iyo dumar way u sameeyeen. Haddaad riyadaas aad aragtid dib iskugu noqo, waxa kaa qaldan hagaaji. Gabadha nin kala tageen, garoobka, hadday ku riyooto caano, taa waxay u tilmaamaysaa kheyr aad u badan, xasilooni, deganaasho. Hadday ku riyooto ninkii hore ay kala tageen asoo caano siinayo, taa waxay tilmaamaysaa xoolo xaggiisa inay ka heli doonto. meherkeedii mise waxyaabo sidaas oo kale ah waxay doonto ahaato. Dhinaciisa mise qof asii dhinaciis ka socda inay lacag ka heli doonto, mise xoolaba ay ka heli doonto, arsaaqad, wallahu yaclam. Iyadaa waxay kaloo tilmaamaysaa haddii labadooda arrin qabaqaabo isku soo noqosho ay jirto inay hargelayso, oo ficlan isku soo noqonaan way tilmaamaysaa. Caanaha kulul mise diiran gabadha la furi, nin kala tageen waxay tilmaamaysaa guur nin wanaagsan inuu Rabbi calaf ugu daray. Qofka hadduu ku riyoodo asigoo caano ka cabaya xabadkiisa, taa way dhici kartaa. Caalamka riyooyinka wax kastaa laga arkaa. Haddaa riyaad ku aragtid waxay tilmaamaysaa inaad qayaanaysid dadka kuu dhadhow. Rag iyo dumar riyada haddaad aragtid dib iskugu noqo, waxa kaa qaldan iska hagaaji. Like noo saar walaalayaal, noona sheer gareey la wadaagay asxaabtiina.